بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku sugan maanta dhaamkii loogu talagalay biyo gelinta degmada Salaxley oo runtii aad arkaysaan baaxad u leeyahay waxaan filayaa muddooyinkan ugu dambeeyay horumarka magaalada Saxawli u socda wadadii cadeed baa iyaduna imika halkan maraysa agteena oo 12 kilomitir kaliya ay ka dhimayn Salaxley tuuna guuxa biyo gelintana way socotaa waxa iyaduna socota riigii oo magaalada wax runtii 5 kilomitir u jira wax ka yar oo biyo gelintii isaga laga soo qaadayo kani waa dhaamkii kaydka waxaan malnayaa Salaxley in lagu soo guuri doono waqtiga soo socda maanta waa maalin Jimcaha ahna 22 bisha Ramadaan oo ku beegan 15 bisha shanaad 2020 ayaanu ku sugannahay degmada Salaxley halkan waxa weeyaan dhaamka loogu talagalay inay ka cabto magaalada Salaxley iyo nawaaxigeedu magaalada Salaxley waxa koonfur ka xiga dhaamkani 3 kilomitir kaliya imka gabagaba ayuu ku dhow yahay waxaana dhinac socda mashaariic kale oo badan sida wadadii cadeyd dhinacii kale riigii dhinac kale beeraha dhinac socda waa waxa aad loogu farxo boqolkiiba boqolna waxa kaalin weyn ka geystay dadka deegaanka oo isku duuban dhalinyaro waayeel ganacsato iyo xoolo dhaqato dhamaantood iyagoo isku duuban bay ka shaqeeyeen waxaanu ku faraxsanahay inaan maanta soo booqano bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdinaasir Ismaaciil Caraale kana mid ah ururka dhalinyarada Saydo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan nimaadno maanta dhaamkii Salaxley loo qodayay farxad weyn bay ii tahay inaan soo gaaro dhaamkii weynaa degmada Salaxley cabirka guud ee balliga ama dhaamkan waxa weeyaan 200 dhinaca iyo 150 dhinaca iyo xagga hoose wuxuu qodayay 3 mitir marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay wax badan ka bedeli doonto biyo la'aanta ka tirtay degmada Salaxley